xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwa laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed wasiir iyo xildhibaano dowlad goboleedka Koonfur Galbeed siyaasiyiin odayaal iyo waxgarad ayaa maanta kulan guubaaba isugu yimid magaalada Muqdisho iyaguna toos u taabtay xaaladda siyaasadda dalka midda Koonfur Galbeed iyo abaaraha dalka ka jira gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed waxa ay soo hadal qaadeen dardargelinta horumarinta deegaanadaasi ilaahay waxaan weydiisanaa inaad cudurka jiro Soomaaliya xilliga cudurka waa emergency wabiyuudka in ilaahay maarkaynaas laga yasiro dhibaatada iyo kala xirnaanta wadanka digirsan in ilaahay loo furfuro oo cudurkan ilaahay meelaas laga aadiyo ilaahay aan weydiinaa kaalmada rabbiga aan weydiinaa بعد الله ومد باش عالمك إنتي داخل بحسوا وماركين وترك مساكين كبرجاتو وعقدسهنا إن كفر قلبين لو كالميو دبعتر كجوت أوارها يشوف بيوتك برنامج كيسي لو كالميو هذا وطننا وحكى هوا إن مسؤوليو حلوانا تقايلها إلى عدة أولها أنه ماركين وهو قوي نكي أسر وحقوي أسر يطالع dadku howl wareegsan ku codsayna dad wax qabsanaya la keenaa meel wax qabanaya dadkii ka soo shaqeeyay oo soo abaabulay xafladda aan dhihi karo waa xaflad guubaabo ah oo loo baahan yahay bulshada reer Koonfur Galbeed inay isu guubaabiyaan si ay danaha iyo hadafka ay leeyihiin u gaaraan runtii Soomaalidu waxay tiraahdaa madaxa korkiisa meel la salaaxo ma jiro qorayaashana dhaqanka oo ka kooban salaadiinta malaaqyada iyo ugaasyada waxay naga mudan yihiin ammaan gaar ah eedkii waa kor saaran tahay hoosna waa ka jaray adaa isdilay Soomaal tan labaad haddii qofka mucaarad uusan lahayn horta jiritaankiisa waxba ma kala jiraan laakiin goormeen mucaarad noqon kartaa waa marka banaanka istaagto xilka haysana iska dhiibto shacabkana ka mid noqoto wixii dalaacayna markaas waad sameyn kartaa بدل الحضرانو iyo dawladda Koonfur Galbeed mas'uuliyiin ka tirsanaa tiri dawladda waa fashilantay Koonfur Galbeed taasoo waxaan leeyahay qiyaamuhu hal mar u dhacaya sida loo sheegay diinta noo sheegtay laakiin maalin walba qolow ka dhaca qofta dhimato ka dhaca qiyaamuhu midna qofta maanta dhinto say qiyaamuhu waa ka dhaca waxay la tahay qofta dawladda Koonfur Galbeed waa fashilantay tiri ayada fashilantay iska casisho haddii uu neenoo diyaalka dhaqanka juhdi badan iyo dhibaato badan miyamahan marnay wadankan sidii ka dhismada lahay haddii aada lahayd dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya 4 sano dhalato dhamaata amiin maara meeluna shaltabnimo leh intaas mayba oo doorkan ahaa inuu wal dhismo may nasiib daraa kuwii una dhismo shalay dhibaato badan ka dhisni aada badan oo galni ini walaagiyo ka dhisni oo geediyo kor ku saarnaayeen hoostu ku dumiyaan waana gorod waayaan mas'uuliyiintii goobta ka hadashay ayaa u jawaabay siyaasiyiin iyaga ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo iyagu eedan iyo dhalaaceen u soo jeeday dawlad wanaaga Koonfur Galbeed ugu dambeyntii madasha waxa soo xiray wasiirka warfaafinta Xasan Cabdi Maxamed guddiga heerka federaal ee dowladda federaalka Soomaaliya ay magacaawday sidoo kale waxaan ognahay Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta in ay tahay dowlad goboleed muddadii koorneed ay jirtay waxyaabo badan oo la taaban karo samaysay kana qayb qaadatay dhismaha dowladnimada iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed iyo doorashooyinkii habboonaa ee dalkeena guud ahaan ka dhacay gaar ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan ognahay toddobaadkan in dad Koonfur Galbeed Soomaaliya ka soo jeedo dabcan xaqna u inay ka hadlaan sidii loo toosin lahaa hase yeeshee hadalladooda qaarkood aysan ahayn mid danaynaya ummadda Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed Soomaaliya annagoo u aragnay hadallada xanafta leh oo aan ka fiirsashada lahayn ee meelaha aan ku habbooneen ay kala yihiin aysan macquul ahayn in reer Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu sugo Xasan Maxamed Aweys Jubbaland TV Muqdisho